السلام عليكم. korkeena boqolkii 70 waa biyo dhulka ku noolnahay boqolkii 70 waa biyo aayadda quraanka waxay tiri wajacalna min almaa'i kull shay'in hayy xadiidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa waaye khayru maa'in ala wajhi al-ard maa'u zamzam maanta waxa ka hadli doonaa insha Allah biyaha zamzamka ceelka iyo fadligeeda biyo waxa waaye haddaa caafimaad u cabtid caafimaadu ilaahay korkaada ku siinaa haddaa murug u cabtidna murugta ilaahay waa kaa qaadaa haddaa cabitaan oo u neysatidna ajir ilaahay ajir waa kaa siinaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadda kor cabay ummana ismaaciil calayhi salaam ilaahay uu dhulka u soo barakeeyay inuu ku soo qasada biyaha zamzamka waxa waaye ibraahim calayhi salaam iyo zawjadiisa haajar xaaskiisa haajar iyo wiilkiisa yar oo ismaaciil calayhi salaam ilaahay wuxuu amray inuu haajir iyo ismaaciil ibraahim calayhi salaam ka tago ayagoo meesha ma ka joogaan qof joogna ma leh nololna meesha ma leheen duur cidli iska ah kadib waxa ka daba orday haajir xaaska oo ibraahim calayhi salaam waxay tiri meeshan yaa nooga tagay meeshan biyo ma leh cunto ma leh dadna ma joogaan marka yaa nooga tagay meeshan shibu ka dhaawaa kala leexday kadib marka xaaska caqliley inay tahay arag markaas tiri ilaahay ma ku amray meeshan inaad nooga tagtid markaasuu dhahay haa ilaahay ay amray kadib waxay tiri ilaahay orod iska tagay tiri ilaahayna mana dayacaayo marka xaaska fiican ilaahay hadduu nasiib qof ilaahay xaas fiican siiyo saas uu ilaahay u fakin doonaa markuu ka fogaaday meelo asaga u jeedin iyo ayakana u jeedin uu istaagay wuxuu ku duceystay ducadiisa rabbi innii askantu min durriyatii biwaadin ghayri dii zarc cinda baytika almuxaram rabbanaa liyuqiimu الصلاة fajcal afidata min annaasi tahwii ilayhim ducadaasuu ku duceystay ilaahay waana u aqbalay hadda waa kana ummada socoto minute walba meeq qofooda meeshaan socoto oo imaanayso oo cibaadaysanayso marka subxaan allah haajir iyo ismaaciil calayhi salaam waa soo yar markii biyaha yar looga tagay oo ugu tagay ibraahim calayhi salaam iyo cuntada yar dhamaatay wixii qabatay weysay wixii raadisay inay maxaa lahaa oo biyo raadiso mise cunto mise dad raadiso kadib waxay u oraday buurta ugu dhow kacbadana waxa waaye jabal as-safa waa dhinacaas ku yaala jabal as-safa markii kortay waa ka soo degtay oraday isku taabatay dhinaca waxay aaday al-marwa dhinacaanu jira jabalka al-marwa inta waa markaasi todumar markii socotay ilaahay bishaarada u keenay ilaahay waxa u soo diray malak jibriil dhulka imaaday markaasuu baalkiisa mise caqibkiisa riwaayad waa jirtaa uu dhulka ku dhuftay ismaaciil calayhi salaam meeshuu jiifay markaasuu ilaahay biyaha ka soo dhexbixiyey buurta kadib markii aragtay way faraxday markaasii isku keentay isku reeriixday biyaha saano kale isku dhadhaweysay zam markaas saas loogu baxshay biyaha zamzamna magacayaashiisana 30 magac waa ka badan tahay waxa la jecel yahay mar walba waxa uu cadiimka mar walba magacayaashooda waa badan yihiin cuniga la jecel yahay mise gabadha la jecel yahay magacayaasheeda waa badan tahay marka zamzamka magacayaashiisana aad u badan tahay maymuuna allah marwiya allah ashabaa allah laakiin dadku waxay u yaqaanaan zamzam magaca oo dadka ugu badan yahay yaqaanaan biyahaasna waa mucjiso oo ilaahay qof walba rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay qof walba wuxuu u cabo niyadu u cabo ilaahay waa siinaa niyada u cabtid walba ilaahay waa ku siinaa laakiin waxa laga rabaa inaa ogaatid inuu ilaahay ku caafinayo biyahana sabab yihiin oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiis laga soo wariyay oo saxdana ah niyadaada inuu ku xiran tahay عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحو عبي maalinta qiyaamo inuu ilaahay oonkiisa niyadiisu ku cabay haddana waa kan waa taqaaneen عمر بن الخطاب 10 mubashiriin bil janna عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحو عبي جري إنه إلهي عالم كدقو علمي إله أفوضي مركو عباين وحو له جري اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء علمي ابن عباس واتقان إلى هد وبرنا إمام الشافعي أبو حنيفة كل جود حكو دعيسان جري إنه إلهي عالم في عن كدقو علمي جود إلى هدنا وبرنا الإمام القرطبي مركو عبد جرينا وحو كنت عيسان جري إنه إلهي قرآنك وفوضي أونا حفظه قرآنك وهو حفظي عدكي سنة آذو وقرحان جري الإمام ابن حجر وحو عبد نيذا إنه إلهي حديثك وفوضي حديثك عالم حديث ونقضي أبو عمرو التميمي وحو كنت عيسان جري إنه مستجاب الدعاء نقضه وإلهي ندعى دي سنة وأقبل جري ضدك حتى وهو ما جري إنه الدعاء
dadka jiran iyo doktorayaasha ka sheekeeyaan dad oo jiranaayeen oo mucjizo ilaahay ka shaafiyeen hadda adduunka oo dhan waa buuxaan mar walbana waa maqashiin marka qof walba niyadu u cabo biyaha zamzamka ilaahay waa siinaa haddaa u cabtid inuu jiro ilaahay kaa qaado ilaahay waa ku caafinaa haddaa oo murug ku hayso ilaahay waa kaa qaadaa haddaa oo lacag la'aan ku hayso ilaahay wuu ku siinaa haddaa oo daciif tahay ilaahay xooguu ku siinaa haddaa waxaa rabtid oo ku ducaysatid ilaahay wuu kuu aqbalaa laakiin adi niyadaada aa lagaa rabaa culammada waxay dhahaan biyaha zamzamka qofka markuu cabo saddexdaas nooc basuu galaa nooca ugu horeeya waxa waaye inuu biyo oonka oo kale u cabo hadduu biyaha oon u cabo ajirna ma ku qaadanayo number 1 waaye kaas number 2 inuu u cabo brobees maalan waa jiran yahay mase muruga hayso mase wuxuu u cabaa marka brobees ahaan uu cabaa wuxuu dhahaa brobeeya biyaha zamzamka qofkaasna waxa waaye ilaahay niyadiisa wax ma ku siina laannu markuu cabaayo brobees ahaan uu cabay dadka nooca saddexaadna waxa waaye dadka u cabaayaan boqol yaqiin inuu ilaahay ku caafinayo mase inuu ilaahay murugta mase wuxuu u cabay inuu boqol ilaahay siinayo hadda intaas waa fahanay waxaa noo dhiman ceelka intuu ku yaali jiray waqtiga ibraahim calayhi salaam iyo ismaaciil calayhi salaam iyo waqtiga rasuulka sallallahu calayhi wasallam haddaan la tusinaa ceelka meesha ku yaala 21 mitir uu jiraa alxajar alaswad meeshaana waa hoosta calaamadan hadda waa lagu qariyay dhulkana wuxuu u jiraa 31 mitir oo dhulka uu dhererkiisa yahay laba il iyo biyahana ka imaadaan il waxay ka imaadaa dhinaca kacbada ilna waxay ka imaadaa dhinaca buurta oo safa labadaas litirna ceelka waxay ku shubayaan markay ugu yar tahay halkii sakin 11 litir markay ugu badan tahana 18 litir halkii sakin waaye ceelka 5000 sano waa ka badan tahay inta hadda la yaqaano wasaq xataa dhexdiisana ku jirto 24 hours mar walba waa nadiif mucjizo ilaahay waaye اوكي آدابت بيها زمزم marka cabaysid maxaa waa sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam koobka gacanta midigta ku qabsane bismillaah dhahe dhinaca qiblada u jeesane dhinaca qiblada marka u jeesid niyadaada waxa ku duceysane waxa rabtid kadib saddex ku maraa cabe hadaa rabtidna fadhiya ku cabe hadaa rabtidna istaag biyaha zamzamka rasuulka sallallahu alayhi wasallam istaag ku cabe xadiidka ibn Abbas oo Bukhari ku jiro inuu Abbas bin Abdul Muttalib inuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam biyo u dhiibay zamzamka istaagan uu ku cabe marka dhamaysid oo ducadaada niyada ku duceysatid alxamdulillaah aa dhahe okay intaas waa fahan alxamdulillaah haddana waxaa aadaynaa ceelka hadda waqtigeena anaka meeshuu ku yaalo 4 kiiloomitir oo noo jira tubo meeshaan ka jiidayso biyaha jirto ilaa geynayso meesha kuday la dhaho haddana aadaynaa insha allah ceelka hadda meeshaana laga dhigay gudaha la tusinaa saa looga soo qaato biyaha bannaanka intaa ka gadan lahayd oo ogeen maxay yihiin biyaha inta waxa waa 100% waa biyaha zamzamka ka soo gashid nambarka iqaamadaada mise baasaboorkaada inta ku qoray kadib markaas warqad qaadanay marka soo qaadatid kadib markaas dhiibe inta ka baxay waxa waaye halka xabo waxa waa 5 litir 3 riyaal aa la gadaa inta nambarkaada fiirsanay hadda nambar 6 ay qoran inta ka raadinay nambar 6 dhinacaanu jira inta nambar 3 waaye dhinacaanu jira keene inta ku aadine saasoo ilaahay u fuudeeyay hadda eber waaye meeshaan waxay furan tahay 24 hours waa iska furan tahay waqtiga arabta imaanay waqtiga oo cariiriga leh maalintii laga fogaadaa eber si u tahay arag zamzamka waa meeshaan dhan waa laga qaataa zamzamka meeshaana meesha oo ugu saxdan waaye xaramka inta looga qaadaa madiinana inta looga qaadaa marka alxamdulillaah wuxuu ilaahay fuudeeyay waaye alxamdulillaah waxa waaye intaana qofka arabta si qofka jeceshaha si waa la iska qaataa qof walba 4 xabood bas uu leeyahay 4 xabad ka badan ma qaadan karo marka hadda oo dad badan oo kula socdaan qof walba 4 xabaa la qaataa inta saamaanta rabeena intu siiyo jazaakumullahu khayr qofkii rabana fiidiyaasha awalna afiirsado subscribe samee fiidiyaasha awal fiirso fiidiyaasha soo socdana sug insha Allah jazaakumullahu khayr astawdiikumullahu alladhi la tadhi'u wadaa'a
xaramkana waa kaas meeshuu ka muuqdaa meesha ceelkana waa kana mashruuca almalik cabdallah lahaa marka insha allah subxaanaka allahuma bixamdika astaqfiruka waatuubu ilayk asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu